السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام دمان أصحاب تقاليقا سيتهين مفيعنتهين ونبت قبتين إذن الله وايدي رجينا ملكستو أدونك كجوكتان سو دواده وماموانا إيا مركلة إيا برنامجكي بلشدة اسل مركز نتابنايو عافيماتك خير الله إذا سيو وجعلها برنامجيدا لابد دينع وتابنايو أدين كان I hope إن إلا جعشيهين إلهان كرجينا يا سود دوادا قير بدني فرحة لسود دوادا أدان وعسوبتهين welcome ما شاء الله ما شاء الله صاحوان كأركتان با إدي ذي سملا ورسن إيا ويرسن إلهان بكرجينا با إلهان كرجينا ورسن إيا ويرسن اللهنا نوسو هويو اللهنا نو كينو خير الله إذا سيو وقت الدير قاركين صاحبهن isjeclayn isku duceynayna isu soo dhaweynayna kala faa'iideysanaynay ma sha Allah ii soo dhawaada khayr Allah idin siiya maadaama barnaamijka aan ka hadlo uu caafimaadka yahay dhanka kalena uu bulshada yahay waxyaabo badan oo loo baahan yahay laga dhaxelaa Allah nooga dhex sahlo adeeg wanaagsan Allah ii soo dhiibo annaga dhan Allah noo sahlo amuuraha waa badan yihiin Allah sahlo Allah saqiro ma sha Allah dad badanaa baahan waxtar lana u baahan Allah u sahlo hooyo uur la markii dib lagu sheego sahal ma aha hal kelmadoo lagugu yiraahdo waxaasaa kaa qaldan ayaa arrinkaaga dhan bedeli karto walaal markii lagu yiraahdo ciladaasaa ku hayso ciladuna ay xanuun tahay xanuunkiina uu kurba leeyahay waa wax aad u adag marka inta badan waad aragteen dhalinyarada sabankan ama dadyowga sabankan waxaa lagu ordaa aalada lagu ordaa waxbaa laga dhex raadiyaa wixii u roon meeshii markaas wax laga tabanayo hadday dhiigga tahay hadday dhimirka tahayba wixii u roona la raadinayaa waxaana laga raadinayaa aaladana dad waa aaminsan yihiin dadna waa waxay dhahaan aaladda waa iska been badan tahay ama waa iska shaki badan tahay allaha noo sahla marka dad soomaaliyeed runta ka sheegayo wixii jiro khayr allah idin siiyo anigu waxaan idin dhahaa mar walbe shaki yaqiinaa ka roon adiguna la soo kala bax intuu alla ku garadsiiyey haddaa qof dumara tahay haddaa nin raga tahay haddaadan adigu isku kalsooneyn ooda luuqadaada ku ciilbixi karin raadso qof 2 minute xataa 2 daqiiqo ku siiyo oo kaaga jawaabo su-aashii wixii lagugu yiri way roon yihiin kula raadiyo marka wax walba waxtarkooda lagu qoraa way kuu soo baxeen waxaa jira dad badan oo cilada tabanayo ciladahaasna dawo malahana la dhahaa dawona way leeyihiin wax walba daway leeyihiin ilaaha noo sahlo marka waxaa jirta daawo cid walba u roon cid walba ay u baahan tahay ilaaha laga helaa wax badanna dabiib u galo marka insha Allah daawadaasna waa idin sheegaya insha Allah adiguna noqo qof fadhiga ka kaco tiisa si qaase ugu soo jeesto ama taada ama tiisa qof walba tiisa cuslaysa sax marka aniga ahaan mamwaano marka idin imaanayo waxaan idin dhahaa fadlan ogow waxa aad ku cabursan tahay waxa ciriiriga ku geliyay waxa ciilka keenay waxa cadibaada xanuun keenay bal fiiri marka waxaaga hadaa fiirsato isku qiyaasato ka warqabto si qaas ugu soo jeesato waxa laga yaabaa ilaahay inuu ku siiyo warsan iyo weersan waxa cunaysidna ilaahay inuu dabiibka kuugu daro kadibna aaba ka boodabo oo dib dambe ugu baahaninbo ciladii marka waxaa dhici karta in cunto la amaanay leeyahay cuntadaana fiican ee nafaqay leedahay oo adduunyo dhan la sheegay cuntadii adiga aad ku xanuunsato waxba ma aha waxaa laga yaabaa inaad tahay qof da'weyn ilaaha weyn oo waaxide hadhowna cilado aadan afka ka sheegi karin ay ku haystaan waa qiyaasi kartaa maleena dadka roon way ka qajilaan waxyaabaha qaar way ka xishoonayaan waxay u baahan yihiin fitamiinaad cilado badan oo xanuun oo la sheegay fitamiinaad loo baahan yahay hadaa fitamiinaadki taqaanid ama fitamiinkii sidiisii ama fitamiinkii cunta aad taqaanid dibka la sheegay waa ka kabanay automatically wixii waa ka soo kabanay isla markiiba waqtigiisa qaadan kartaa marka warsan iyo weersan Allah keenee aduguba fiiri waxyaabaha meeshaan lagugu keenayo ama channelkan laga sheegayo ama Instagramkiisa laga helo waa wax la yiri waxbay u roon yihiin ama lagaaga digayo waxaa laga yaabaa inaad gabar uur la tahay
inaa wax ku walacdo inaa wixii rabto haddana cillad laga sheegay. marka wixii waa wax fiican oo nafaqo leh laakiin uurkaaga ayay dhib ku noqon karaan. marka maadaama uurkaaga ay dhib ku noqonayso iska dhaaf. haddaa isdabiibaysid hal shay ha raadin weligaa, wax badan raadi. waayo hal shay haddaad raadiso de intaasaad kusoo afjarmaysaa. laakiin haddaad wax badan oo nafaqo leh aad raadido adiguna idan alleh wax badanaad uga soo bogsota ama uga soo kabataa amaba jirkaaga oo u noqdaa dhagdhag. waa qiyaasi karaa marka dad badanaa luuqa soo galo boqolaalo mararka qaar kumanaano kilibyadii horey dhageysteen kilibyada hadday la socdaan. cilada caafimaad daraa jiro, farxaddii dadaalkii wixii oo dhan arrimihii oo dhan isku qasan. marka qof walba tow qaboo luuqa ii dhigaa kama wada jawaabi karo. marka intaan kuugu sheegaya insha allah adiguna cindigaaga la kaasho. waxyaabaha qaarkood oo jiro oo mugdiga lala galo oo muudka lala galo ma aha wax laga xishoodo, ma aha wax la qarsado keligaa, waa wax simbala ah oo haddaad iska dabiibto idan ilaahay beri aa ka baashaali karto. waxaa jira cillado soomaalida ay necab yihiin inay ka hadlaan islana cidleeyaan, naftooda cidlay la fadhiisiyaan. wax fiicanna maaha, cidna kuma ogaanayso ogow. caawi beriba qari sanado qari aday ku jirtaa. jasta muhiimadda waa meeshaad ku sheegi lahayd iyo ciddaad u sheegan lahayd iyo waxa u roon un. marka wax walba u roon aan insha allah idiin wadaa. warsan iyo weersanna allaha keeno. ma jecli qof dhiban oo dhib uu haysto inuu muudka la galo ama uu iskala seexdo, ma jecli. sababta oo ah cilada aad tabanaysid way kugu qoto dheeraaneen waana kuu keligaa. mararka qaarna waxaa is dhahnaa dadkeenna ma fahansana baddaan, dadkeenna xal uma helin arrinkan, dadkeenna way nagu qoslaan ama waa igu digdiganaan haddaanu sheego. dhakhtarka waa lagala xishoodaa, qofka hadlaaya ma laha. wixiina waa wax simbala oo la xallin karo. ogaada brobleemku ma kala yaqaana dadka. ma dhahaya la gabadhan maskiin waaye waxba ma heli karto bal aan ka leexda dhihimaa gabadhan waa gabar lacag leeyahoo tijaarada aan ka leexda dhihimaa qofkan waa qof da-yar ama waa gabar yar ama waa wiil yar ama waa oday weyn. dhihimaa problem waa problem, qof walbana wuu haleeli karaa. mararka qaar waa xanuun, mararka qaar waa cadibaad nolol, mararka qaar waa arin confuse keeno, ma naqaano wax keeno, waa iska amar ilaahi un. adduunyadan lama dhihin wax walba waa easy busy. mararka qaar waxa adiga ku dhibaayo waxa laga yaabaa inay tahay baabasiir yar ama caloosha ku taagan ama nabar caloosha kaa haayo ama cilad wax yaroo nafaqaa u baahan. haddaan laguu fahansiin wixii inay wax yar yihiin warsani weersan allaha keenee den ma ogaan kartid. waxay kugu noqonaysaa arrinkuu keligaayo maslaxa kusoo taagto. maxaa sameynay keligaahay ku haysataa, caawi berrina adilay qarinaysid, adilay ku haysataa. marka ummadaha waxay sameeyaan siray haystaan. hadda aniga ingiriiskan deganahay waxyaabaha ugu badan oo la helo oo aqliga laga helo waxaa ka mid ah qofkii yaqaano websaydyada qaar ee lagu qoro artikolada ka akhriso, buugaagtoo kale oo la akhrisado. wixii marka waa kuwa private waa soo qaadatay gurigaaga imaatay library-ga ka soo qaadatay ama online aba ka akhrisatay, cindigaaga la kaashanay. wixii waxtar leh oo lagu sheegay waa qaadatay, aaladaa ka dhex gadatay, wixii lala ordaa gurigaaga lagugu keenay, dabiibkaa bilowday. qof Soomaaliyeed markiinuu saas iskugu dhufsado way yar tahay. intaasoo milyan oo Soomaaliyeed waxaa laga yaabaa dad fara ku tirisa inay ciladaha ay kala kulmeen xal adduunyo inay ka raadsadeen xal u raadsadeen. inta badan dadka ma raadiyaan xalka, ama waa laga xishoodaa ama lama heli karaa lees dhaha wixii u roon, ama waxaaba nagu xiriiro dadna dhahayo iska aamus waxaas waxba maaragta maahane, iska aamus dadkaa daranaaba jiro kugu aamusiinayo ciladaadii. marka dadkeena dad iska garabsada maaha ciladaha yaryar, waana dad inta badan dhaho iska dhaaf waxaas waxbaba maahane, ka daranii ka daranaa jire adigana wixii ay kugu yihiin wax cilad ah amaba sii babalaaro karo. marka allaha keeno kheyr, raali ahaada, kheyr allaha keeno. walaalaha marka mar walba dhahayo waan qortaa wixii soo galo
qadka waxaa soo gelisad bismillah waxaa soo gelisad maamu waa qortaa walaalaha ay dhahaayo kheyr allah idin siiyo allah idin fududeeyo amuurta dhammaanteen allaha noo fududeeyo wax ka fiican male warsan iyo weersan wax ka fiican malaha amuur kuu hagaagtay mararka qaar waxa aad leedahay xal u raadi waa run waa lagugu qoslaa haddaad tirahdid waxaan dareemayaa cimri degdeg waa lagugu qosla waxa lagu leeyahay aradnaga taqduqaa tahay laakiin waa run cuntooyinka jirka qurux badnaysiiyo oo maqaarka u fiican oo nafta dhan ka dhigo yaa dhagdhag beautiful ka dhigo ma taqaanid mana kuu sheegayaan haddaad sheegatidna way kugu qoslaan waxay ku leeyihin awalba duqa aheyd marka dadkan kheyr allaha siiye waa dad oo yaa kulama wada shaqeynaya kulligood marka adigan inaa isku duduwataa lagaa rabaa insha allah moo faahfaahin oo wixii wax u roon way noo soo socdaan laakiin muhiimadda waxaa waa adiga diyaar ma tahay adiga diyaar ma tahay kheyr allaha ku siiya buug iyo qalin ma wadataa adoon qaraar fiirinayn ur fiirinayn gaduud fiirinayn cagaar fiirinayn yalow fiirinaynin ama jaallo fiirinaynin wixii waxtar la diyaar ma u tahay ma fadhidaa janalkan ma jeceshahay inaa faa'iidaysatid ma jeceshahay amuurtaada allaha ka dhigo warsan iyo weersan inay ku dambeyso kheyr allah idi siiyo masar jaakad haddaad tahay message jaakad haddaad tahayba isu soo jaakaday dantaada ku sabir u sabir dantaada maanta taada haddaa u sabri weysid I don't know berri meeshaad mari doontid meel nabada allahna mariyo kheyr allaha ku siiyo dadka ma wada fahmaan saa wax u rabtid iyo saa wax u qabtid iyo siduu xaalka kaa yahay laakiin adaa fahamsan meeshaan ku soconno ilaahay baa og waa shacni dhiman hase yeeshee adigu haddaad taada taqaanid meelsan allah ku mariyee rajadaada ma xumo meel kastoo adduunka ka joogtid waayo waxaa tahay qof aqli badan oo tiisa og qofkuna tiisa markuu og yahay waxa waaye tu kale waxba uguma yaala taada leed ku mashquulsan tahay marka ha caragaroorin ha daalin ha fududaanin ha xanaaqin ha caburmin dadkanoo dhan iyo waxaan iska daba ordaahoo dhan waa uun wax laysku soo diray waa uun jas yaa mucjiso laysku soo diray ma dhihi karee waa uun amar marka haddii lagaa xanaajiyo sabar haddaad wax ka xanaajinaysid iska dhaaf magoo intay goorgoor tahay kheyr allaha ku siiyo taada u soo jeeso mustaqbalka allaha ka dhiga amuurtaada kheyr naftaada caawi intaad ka gaartidna ummadaada caawi iyo eheladaada waxyaabaha jiro hadday tahay xanuun hadday tahay waxa loo raadinaya hadday tahay horumar hadday tahay arin dhacay oo la xalina waxay rabtaba ha noqoto adigu uun tartiibtaada meeshaan meel waana waaye meel dabiib waaye tartiibtaada wax u raadso dadka qaar waxay leeyihiin maamada weligeed kama hadlayso waxaan ani ka hadlayo macquul inaad exactly waxaa ka hadlaysi ka hadlo laakiin waana dhammaystiri karin weligay allahay waayo saa wax u rabta adigu waa individual waxaa tahay qof oo unique ah qof oo just ya toos yaa xaq rabbi ka yimid saa wax u rabtid ani ma ogaan karo ilaahay basaa og kasakown adaa og macquul inaad garab u baahan tahay galgacayl u baahan tahay walaaltinimo u baahan tahay caawimaad u baahan tahay fahansiin u baahan tahay duco u baahan tahay but sidaa wax u rabtid sidaad exactly wax u rabtid ilaahay baa og muudkaa kula jirtaa warkaaga ama nin ahow ama qof dumara ahow aday kuu taallaa annaka dhan saan wax u rabna ilaaha og sida wax loo rabana ilaaha laga helaa marka ducada badi insha allah ducada badi hooyo daalan haddaad tahay hooyo arrimihii qoyska ku adkaadeen haddaad tahay aabe ay ku adkaadeen haddaad tahay awlaadii hadday joogto haddayna joogin farxad hadday jirto haddayna jirin guur hadduu jiro hadduuna jirin sheekadu ha socoto waa hase yeeshee warsan iyo weersan allah soo yeersho kaligaa ma tihid ciladaha laga xishoodo oo laga qajilo way jirtaa wadan walbana wuu haystaa waxaa la dhahaa embarrassing illnesses intaba way jiraan programaba laga sameyn jiray baberi I don't know inuu weli jiray in kale waxyaabaha xanuunaadka laga qajilo waa marka aniguna waa ka hadlaa inkastoon dabaqo oona say tahay aanan diirka uga qaadin waayo maba laga qaadi karabo diiniyan wax fiican maaha in wixii oo dhan maaragtay ya dadka indhaha laga saaro wax fiican maaha wax ceeba waaye annagana xoogaa reer dabiib reer dadaal intaan wax qarqari karnaa qarqarinaynaa haddana intaan wax isfahansii karnaa isfahansiinaynaa ila garawaa basically ila garawaa
ya xanuunaadka oo laga xishoodo waa ila garo waa la korkor maraa laakiin adigana soo diyaar garow muhiimadda waxaa waa inaan xarbino inaan xooga saarno danteena inaan fahano kor haddaa kasoo wareegano levelada fitamiinaadka hormoon levelka waxay noqotaba allaha noo dheelitiro allaha nooga dhigo meeshii laga rabay marka adiguna haddaa dadaashid leveladu waa wax soo kordho isna dheelitiro waxay rabtaa ha noqoto macaano cholesteroolo dhiig karo blood pressure waxay rabtaa ha noqoto marka cunto wanaagsan oo waxtar la haddaa qaadatid isku rooroonaatid qalbiga dejisid problem oo dhan aadan israacinin qof xasilan oo ka yara fiirsado dhibka haddaa noqoto maskaxda ka shaqaysiisid insha allah waxa waaye wax badan waa kuu hagaagayaan allahna noo hagaajiyo marka waxyaabahan ilaahay baa oo goorkay hagaagayaan goorkay curanayaan goorkay suurto gelayso marka intay arrinkaasoo dhan la gaarin waxaa lagaa rabaa adiguna inaad waraabka bilowdo makaan waraabidayaa iyo yaa xubintaada taranka waraabidayaa iyo madax ilaa iyo lug heetito waraabidayaabo inaa iswaraabisid waxaa isku waraabinaysidna ha noqoto wax wacan oo wanaagsan mararka qaar maskaxdaa la waraabiyaa maxaa lagu waraabiyaa wax macaan hadal wanaagsan qalbi dejisan niyadsan korkaada kalena saas waa hadda dii lagu dhaho ugxaan kobci maanta oo dhan waxa waaye haddaad hadal ay soo wadid waxa waaye meel hoo u baahan hadal wax kama tara waa ma fahanti marka hadha waxaa taagan tahay maxaa ku dhacay beebigii bariisii baasta macaan badanna miiskaa saarata dig ah ka siise iska dhaaf ma lagaa karo amuurtaadana inay kor aadaa rabtaa marka inkastoo ilaahay wato oo goorkaad helaysid ilaahay og yahay hase yeeshee dadaal aad basiiro vitamin food adoo ag fadhiyo muu maleyna inay wax hagaagayaan inkastay gabdhaha qaar halqabsi ka dhigteen annakaba waana lagu dhalay bariisii baastana lagu dhalay wel hadda habartaa adoogaa ma taagna sheekada adig ku taagantahay sooma adigana vitamin.com aa lagaa rabaa marka isku rooroonaada insha allah kheyr badan iyo farxada ilaah idiinka rajeynaa maanta haddaad qaadanaysid haddaada qaadanaynbo waa laguu cadeeyey waa laguu waadixiyey siduu xaalka lagaa rabo weliba laysma gaarin marka waa soo socotaa sheekada waxa waaye faanoole fare kama qodnadii la sheegi jira waaye aqool daraa layidhi abaar guureysa way ka daran tahay waxyaabahana isku nafaqeyneysaan aqoosha meel fiican dhigta tartiib iyo qayaas ku qaata qalbiga dejiya ilaahay barya maasha allah meeshaan waxaa ka buuxa saaxiibo iswada diyaarinayo iswada nafaqeynayo isqalbi dejinayo isfarxad gelinayo haddaad noogu timaada dhinaca kale iyo gruubyadana barasho wanaagsan adigoo aqooshaada iyo danahaaga iyo dabiibkaaga iyo buuggaaga iyo qalinkaaga wato wixii aad heshaa kheyr allaha kaaga dhigo xaggan iyo channelka haddaad saaxiib ku nahayne saasoo kale aqoolo isku duduwo wixii agtaada laga waayo waxaa layidhi bun haddii la waayo bedelkiisaa la helaa marka insha allahu kheyr adigu isku rooroono uu naftaada jeclow ilaahayna bari cidna waxba kuuma qaban karto ilaa allah kuu qabta maahane marka ilaahay ha noo yeela amuurteeno abshire adigu naftaada inaa waraabida diyaar u noqo fadlan dabeecadahaada wax ka bedel waxyaabaha keeni karo naftoo cabursan insha allah iska dhaaf u fiirso caadadaada haddaad dumar tahay u fiirso arrimahaada kale haddaa nin raga tahay ha isdedejinin ha caroonin wax maanta isku qasan oo weliba waxaan wanaagsanayn laga soo sheegay beri markaa gacanta ku dhigto oo adigu isnafaqayso waxaa laga yaabaa inay dhagdhag kuu noqoto yaa kuu sheegaahe yaa kuu sheegaa haddii laguu sheegay dib dambe laguma arkeen waxawaaye nafaqadaada inta ag fadhiisatid kabacdina waxawaaye yaa quruxdaadii maasha allah caafimaadkaaga isku waday mari laheyd laakiin hadda walwalkaagii kurbadaadii isku wada marte iyo walbahaarkaagii marka ilaahay bari ilaahay bari ilaahay bari kheyr badan iyo farxada ilaahay idinka rajeynaa arrinka daawada wax walba u roon oo idiin sheegayo waa ducada maanta duca waa tii soo duxdo qofkii duceysto oo ilaahay baryo oo isku soo jeesto biidnillah waa ku guuleysana arrinkiisa adduunka dhan waa wada nafaqo adduunka dhan waa wada farxad adduunka dhan waa wada nabad dadkaa ka waalay maahane adduunka waa meel wanaagsan hase yeeshee dadkii aan wixii isla keeni karin isku duduwan karin isku dadaali karin iscaawinaynin meeqa qofaa kheyraad la fadhiso oon kuu sheegaynin yaa kuu sheegaa waa
marka maadaama annaga diyaar lanahay inaan iswaraabino inaan iswax fahansiino fadlan soo dhawow adiguna aad iyo aad iyo aada u jeclahay markaa luuqadaha afka qalaadoo la sheego wax ku taqaaniin luuqada harti lasoo kala bax ood ku raadida wixii waxtar leh hadday kuu soo baxdo nooga faa'iidee insha allah komanka soo gal qof wax lagu sheegay oo wax waliba khatara lagu sheegay wax fiican maaha xalaa loo raadiyaa dadkeena ayagoo mutacalimiina qaarkood ee meel la fadhiisanayaan wixii dhib lagu sheegay wax yaroo simbalaan laga yaabaa inay amuurta kala kici lahayd marka fadlan hadla oo wax qora insha allah qof walba wuu haystaa aaladda wuu soo geli karaa haddaad clipkan dhegeysato oo wax lagu faa'iida meel ku ogtaa komankaa ku sheegi kartaa arwalaalahe waa idiin duceynaa sida hadda koman aan arkay insha allah hadda mashquulaanahay mar kale aan soo geli doonaa idinkala hadli doonaa ama qofkaas u mahad celin doonaa mahad alle u sugnaatay barnaamijkii ka horeeyey maasha allah dad badanaa koman fiican qoraayay khayr allah idi siiye ka nasibooda insha allah give a like give a duco maasha allah wax kaleba lagaama rabo khayr allah ku siiyo qof lagu sheegay ciladaha infertilityga oo murugaysan haddaa maanta dawo yar meel ku ogtahay ama cunto yaroo nafaqa leh meel ku ogtahay waxawaa kurbaa ka fujida ducada aa qaadanaysid waxawaaye xisaab ma laha waayo dhakhtarka wixii uu arkay loo sheegay waana iska baxye dantiisa intaas leed sooma marka walaalkii lagu sheegay damage jiro ama weliga ilmo ma dhalaysid ama qaabka niyo ka aragna wax laguma dhalo wiilkii iyo kurbadii way israaceen wuxuu rooni wuxuu cunay wuxuu cabana ma yaqaano marka gabadhina waa saas oo kale dadkuna way ka xishoonayeen inay dhaan war guri mugdiyaan fadhiya ilaahay awlaad ha isiiye ilaaha bixiyo laakiin bal maxaad igu dhaantaan walaalayaalo marka haddaa wax ku dhaantid komanka ugu sheeg dadkan waxa waa khayr allah siiye mararka qaar xataa ma hadli karaan maxaa ii roon ma dhihi karaan marka aniga duqmaamuwaana intaa rooroori karaa rooroora ducadiinaasaan ku roorooraa dadaalkiinaas farxadiinaas dhiiragelintaas oo guuriyadiinaas I can't say that word right oo guuriyadiina because markaa iisoo sheegtiin inuu ilaahay idinku guulay aada u farxaa so that's why energy ii tahay adinkana energy idiin tahay waxaan ilala raadinayo marka duceysta dadaala farxa ilaahay barya duco hays daba taalo allahna noo soo duxiyo maasha allah walaalo aanan aqoonin oo walaaltinimadaas iyo soomaalinimadaas islaamnimadaas aan saaxiib ku noqona isku duceyneyna maxaa u malaynaya waalidka markuu kuu duceeyo oo ehelada kuu duceyso oo sawjka kuu duceeyo sawjada kuu duceyso maxaa u malaynaya taas ma kasii fiicno khayr allah idi siiye waxaa cuni waxaa cabna daawo allah ku daro khayr badan iyo farxada ilaah idinka rajeynaa waxyaabahan aan hadda ka hadlaa adigana cindigaaga la kaasho afcourse waxaa layiri gafuur cawa ninkii soo dhibaa caawa haddaa caraysan tahay nobody knows qof kaloo og ma laha adigii ilaaha is og caradaadii caburkaaga iyo ciilkaaga meelaa la fadhine caawa haddaa xanuunsan tahay cidna kuma ogo marka see tahayba waa sidaa layiri marka aan isdhahno see tahay ma fiicantihiin ma nabad qabtiin aan isdhahno allahna na siiyo nabadda allahna siiyo farxadda allahna siiyo jacaylka allahna siiyo nabadda alla nooma waayo waxaa cunay waxaa cabna cimrigeena allaha dheereeyo hormoonkeena allaha noo hagaajiyo cibaadadeena allaha noo hagaajiyo guryaheena nuur allaha dhigo fadlan hadduu ilaahay awlaad ku siiyo nolol ku siiye say alxamdulilah meel kastoo adduunka ka joogtid intaanan haysanina u duceeya waa arkaya walaalo u duceynaa khayr allah idi siiyo hala duceeyo waayo adaa maanta haysatid waa aragtay macaantooda iyo wehelkooda iyo farxadooda ilaahana bixiyo qofkaanan haysan cidna ma eedi karo waayo xag rabbiyay ka yimaadaan marka adiguna naftaada tekeer ku samee waxyaabahaanaan diidno soomaali haddaan naho leenaha ma cunno ma naqaano ma jecli aan leenahay nafaqaa ka buuxdo dadku waa isku shiitaan waa iska fiiqsadaan laakiin annaga xoogaa amar diidaan nahay aad aan u nahay amar diid ani marka waxaa idinka daba wadaa khayr allah siiye waxaa cunayno waxay u roon yihiin haddaad diidaysa aday ku jirtaa you still free xorata waa diidi kartaa laakiin ani waa kuu sheegaale intaa kaa dilqinaa dad badanoo waxaa jira xataa janalka ka cararay oo diidan waxaa la sheegaa hey gadaal ha u celinin ya hebel waxaas gadaal ha u celin anima dhihi kariyaa isku dhufsan kariyaa waa ka xishoonaa hadaa ii taqaanid laakiin maasha allah waqti horaa la dhihi jira soo maaha marka gadaal yaana loo celinin wixii hadda waa la bartay waa la akhrisan karaa adigaba raadi dah kaama saarno wax lagaa qarinaa maaha marka qalbi dejintaas waa muhiim
hal shay iyo laba shayna hadda lama isticmaalay, wax badanaa la isku dardarsadaa, laakiin in yaraa la isku dardarsadaa sida loo helo nafaqo oo fuul ah. yahe marka dadkiis dabiiba way ogyihiin, kuwaan la shaqeeya way ogyihiin, kheyr allah idin siiyo. marka isnafaqaysid, jawaabtaadii hore oo dhakhtarka kaaga naxsaday yaa kod kaaga siiyey iyo jawaabtaada dambe isma laha, isku meel ma maraan. jawaabtaada dambe farxad waaye, wixii oo dhan soo wada kobceen oo leebaladii dhan ku fiicnaadeen, maasha allah. iyo jawaabtii hore oo naxtinta ahayd oo lagaaga naxsaday. marka si la yeelaya xaal adduunya waaye. marka ilaahay hala baryo kheyr badan iyo farxada ilaahay idinka rajeynaa. waxyaabahan oo dhan waa iska xaal adduunyo, ma naqaano wixii naga maqan waxay u maqan yihiin. hase yeeshee haddayba wax naga maqan yihiin, ducaa la rabaa, wax nabada ilaahay inuu keeno. owlaad hadday tahay kuwa baariyaal ilaahay inuu keeno, guur hadday tahay guur wanaagsan oo lagu najaxa ilaahay inuu keeno, xoolo hadday yihiin xoolo barakaysan ilaahay inuu keeno, caafimaad hadday tahay mid kaamil ilaahay inuu keeno. wax walbe duco wadadan ku soconana mid nabada allaha ka dhigo. meel aa u socotid iyo meelaa gaaraysid ma ogi. cajaa'ibka adduunka saas waaye, cid og ma laha. aniga ma ogi, adiga ma ogid. waxaa laga yaabaa berri inaa maqashid duqmaamwaana lugtay taagtay, alla raxma raaximiin. yisi intaasaaba adduunka ku lahaay. adigana sidoo kale maalin maalmaha ka mid a lagu leeyahay ninkii hebel ahay ma aragteen, haa ilaahay u naxariisto, gabadhii heblaheed ilaahay u naxariisto. marka kuwa naga soo daba duceeyana alla nooma waayo. saaxiibadeeda qaaliga waa idin jeclahay, fadlan ducada badi. ilaahay hadduu amuurtaada kuu sahlane say maasha allah. waxaa lama hela moogtahay maalin walba, it's not a good day. maaragta maalmaha qaar waa kaa maroortaa. marka maalmahay naga maroortana qalbiga allaha noo dejiyo, maalmahay noo toosan tahayne allaha noo barakeeyo. waa idin salaamaa, kheyr badan iyo farxada ilaa idinka rajeyna. wixii idiin daran iska joojiya, wixii idiin roonne raadsada. labadaba joyskeeda adaa iska leh, labadaba adaa iska leh. adigaa maaragta lagaa rabaa inaa isku dhufsatid. wixii hadday kuu roon yihiinne inaa raadsatid, hadday kuu daran yihiinne inaa gacanta iska qabatid oo tiraada mayey. marka kheyr badan iyo farxada ilaa idinka rajeyna. dad isku rooroon noqda, dad isjecel noqda, dad noo duceeya noqda. qof lagu jiraa layidhi, ilaahay baa og, annaka dhan ma naqaano. laakiin inaan maskaxda ka shaqaysiino oon isku rooroonana saaxiib ku noqonay. ilaahaan isku kaaya sahlay. kheyr allah idin siiya. ani markasta waxaan jeclahay inaan hawada idiin soo mariyo xig jeceel ah, ama xoogaa jeceel ah, ama in yaroo jeceel. in badan, not in yar, in badan. kheyr allah idin siiya. walaa waxaan jeclahay markaa idiin imaado xataa inaan in a good mood ahay, inaan maaragta faraxsanahay, inaan jeclahay waxaan idiin sheegayo inaa ku faraxdaan. ilaahay idin farxad geliyo, ilaahana wada farxad geliyo. anigaba luuqa waxaa iisoo dhigtiin tahniyad badan, duco badan, farxad badan. anigii ehelkayga ii wada duceysiin, maasha allah. kheyr allah idin siiyo. waa ku faraxsanahay inaan nafaqa dayday noqonay, inaan nabad aan ka shaqeynayno, inay guryaheennii habi yihiin, in aan u sabrayno xataa cilado la sheegay, inaan dheg loo dhigaynin waxyaabo uun dhakhtar nagu sheegay. waayo dadkii waagii hore waxa waaye intaan asxaabta badi isbaranin, markii dhib la sheego qaracana qod loola dhici jiray. waayo waxaa moogtaa marka laguu sheega xataa dhakhtarkay ku xirantaas oo kuugu sheegayo. insha allah brograamka kale idinku sheegi doonaa dhakhtarkasoo dadka uga naxsado iyo waxyaabihii uu ku yiri iyo waxay kala kulmeen. wallahi it's so embarrassing waay. marka good idea loo baahan yahay. wixii markii lagaaga soo aqbaar warrama jirkaaga, waxaa lagaa rabaa inaad tiraahdo okay oo isbedeshid. laakiin yaa kuu sheegaya? soomaali kuuma sheegini. dhagaheena waxay jecel yihiin good news. dhakhtar haddaa u tagto okay waa jecelnaa, kelmadda okay saa u jecelnahay le waxaasaa qaldan markii lagu dhaha. laakiin code naxtin.com. marka ilaahay noo kaalmee. kulli waa idin jeclahay. kheyr badan iyo farxada ilaahay idinka rajeyna. waxaa soo baxay dhalinyaro yaryar oo soo raadiyo oo young ah. insha allah ka raali ahaada, busy, shaqo, horod, maamo waa iska taqaaniin. marka waa kasoo hadlaa bal arrimaha adinkana meesha dhigteen yaa layga xanaaqin. waa arkay arrimo badanaa xoogaa meesha ii yaalo, waa kasoo hadli doonaa insha allah. maamooyinaa jiraan maasha allah, iyo wiilalna waa soo babateen maasha allah. wiilashaa lasoo dhaweeyo. kheyr iyo farxada ilaahay idinka rajeynaya. dhammaantiin cafiya caafimaad waa inoo iyo barnaamijka dambe hadduu ilaahay yiraahdo. I love you kulligiin. naftiinana jeclaada, ilaahayna naga raali noqdo. hayehe kheyr badan iyo farxad badan yahe. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.